حيوان idin salaamay sheekh salaan kadib waxaad noo sheegtaa caruurtii nabiga calayhi salaatu wasalaam tiradooda iyo waxay kala ahaayeen wiilal iyo hablo bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah amaa bacd nabigeena sala allahu alayhi wasalam caruurtiisu toddobay ahaayeen afarna wiilal bay ahaayeen iyo rag bay ahaayeen waxaan leeyahay saddexna wiilal iyo rag bay ahaayeen afarna gabdho ama hablay ahaayeen gabdhuhu waxay ahaayeen zaynab iyo ruqiya umu kalhuum iyo faatima zaynab abulcaasim bin rabiic nin la yihahdaa qabay u carruur dhashay nabigoo nool bayna dhimatay sala allahu alayh alih wasalam ruqiya iyo umu kalhuum waxay isaga dambeeyeen cuhmaan ibnu cafaan radi allahu canhu wa ardaah oo markay ruqiya ka dhimatay baa umu kalhuum loogu xiskiisamay kadib iyadana way dhimatay labadubana nabigoo nool bay dhinteen sala allahu alayh wasalam faatima radi allahu canha wa ardaaha waxaa qabay cali iyada keliya nabiga ka dambeysay sal slam muddo dhowr bilood ee 6 bilood meelahaas qiyaastii ayay ka dambeysay iyada ayana ka faraca ka hadhay oo gabdhihii nabiga alayh slat slam iyo caruurtiisiibana iyadaa jirta afarta gabdhay ahaayeen afarta gabdhoodba hooyadu waa khadiija radi allahu canha wa ardaaha wiilashu 3 bay ahaayeen labay khadiijo dhashay ninka labada waxaa weynaa qaasim oo nabiga lagu kunyadiisa laga dhigo abulqaasim la dhihi jiray iyo nin ka yaraa isaga oo la yiraahdo cabdullaahi ayib iyo daahirna labadaba lagu naanayso 4 gabdhood ee hore iyo labadan wiilba bah khadiijay ahaayeen hal wiiloo yar oo 7 baa jiray oo ibraahim la dhihi jiray isagana 18 bilood noolaay oo dhintay oy maariya dhashay marka 7daasay ahaayeen gabdhuhu waa zaynab ruqiya umu kalhuum iyo faatima wiilashuna waa qaasim cabdullaahi iyo ibraahim dhammaan caruurtu 3 gabdhood iyo 3 wiil nabigoo nool bay dhinteen sala allahu alayh alih wasalam faatimo keliya ayaa ka dambeysay iyada keliya ayaana farac ka hadhay intaan ognahay wabilahi towfiiq